محمد عمر لجيي محكمة xilligaas wuxuu codsaday isagu in damiinaan lagu sii daayo maadaama uu tartabo isagoo xabsiga banaanka kaga maqan taas maxkamadda lagu keeno boolisku wuxuu codsaday in 14 bir la siiyo isla markiina waxa la yiri bariban arrintaas jawaabteedii sheegi doonaa maalintii ku xigtay ayaa la keenay maxkamadda Cabdi Maxamed Cumar marka maalintii waxa loo sheegay arrintaas inay suurtagal ahayn oo maxkamaddu way ka diiday in damiinaan lagu sii daayo oo maxkamadda isagoo xabsiga banaanka jooga maxkamadda la keeno markaana booliskii waxa loo yeelay 14 maalmood ee codsadeen ay dhaheen waan ku soo baaleynaa in la siiyo hadaba jawaab celintii ayaa maantana saas ayaa loo balansan yahay waa tahay Cabdi Naasir maanta maxaa la filayaa marka maanta intii koreysay Axmed waxay ahayd in la furo faylka Cabdi Maxamed Cumar laakiin maanta waxa laga yaabaa in waxyaabaha ay ku hayaan ay ku daboodaan dambiga inay maanta ku furan ayaa laga yaabaa waxyaabo badanna waa la sheegaa oo dadku sheegaan inta toon ilaa hadda wax lagu furay ba jirin gaaraan maalintii ugu dambeysay dhibaatadii jidda ka dhacday iyo ururkii heego waxyaabuhu sameeyay Cabdi Maxamed Cumar waxyaabaha lagu haysto ay dad badan aaminaan inay kamid tahay sidoo kalena inuu ku takrifal awoodeed intii uu kilka maamulayay ama deegaanka maamulayay inuu ku sameeyay sidoo kalena miisaaniyadii kilka ayaa si xun u isticmaalay oo iyada lafteeda si wanaagsan oo si dawladnimo ah uu ku maamulin bayda waxyaabaha la sheegay laga yaabo Cabdi Maxamed Cumar in lagu haysto ay kamid yihiin waxaana intaas si dheer hay'adaha xuquuqul insaanka oo maaragtay iyaguna cabasho badan ama qoraalo badan ka sameeyay Cabdi Maxamed Cumar gaar ahaan jeelka dhexe ee dowladda Soomaalida ee loo yaqaan jeel ogaadeen marka waxyaabahaas oo dhan ayaa maanta laga yaabaa Cabdi Maxamed Cumar in kiis looga dhigo oo halkaas booliskii 14 maalmood qabsaday ay ka akhriyaan Cabdi Naasir dabcan Cabdi Maxamed Cumar waxa uu ahaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida dadku sidee u arkaan maxkamadeyntiisa waa sidee shucuurta dadku Axmed horta dadku siyaabo kala duwan ay u arkaan dad waxay u arkaan nin dambi galay oo maxkamad la soo taagayo sharciga cidna inay ka weyneen ay dadku aaminsan yihiin dadna waxay aaminsan yihiin in deegaanka ay kaga habboonaan lahayd in lagu maxkamadeeyo meesha federaalku lagu maxkamadeynayo maadaama dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ka ahaa isla markaana waxyaabaha dhibaatooyinka la sheegayo uu deegaanku ka geystay marka dadku saasi u kala duwan yihiin isla markaana waxa ka badan marka Axmed maanta hadii la keeno waa maalinkii loo balansanaa Cabdi in la keeno kullina idaacadaheena damaanka waqti doonaa waxa la yiraahdo kale Cabdi Maxamed Cumar kaligiina waxa la socda 3 xubnood oo kale Marwo Raxmaan Maxamuud Hayde iyo Cabdirsaaq Saxane sidoo kalena waxa la socda Farxaan komishinka booliska marka afartoodu marka ay ku kala duwan yihiin oo madaxweynihii hore iyo 3 xubnood kale ay ku kala duwan yihiin marka waxyaabihi soo kordhanay idaacadaheena dambe hadii la yiraahdo inay ku ogaan doonaa